waxa soo raaca wax la yiraahdo asaygu wax kala maaha waa muddada 4 bilood iyo 10 habeen ama muddada ay uur kaleeda naagta laga dhintay inaysan isgaroobin oo aysan madoon noqon leeyahay waa ujeedadu tarku ziina al-mufrida yani ziinada iyo xaragada dheeraadka inay iska dhaaf waana 4 shay kaliya ka tagay al-libaas al-faakhir dharka aadka u quruxda badan oo aroosyada iyo xafladaha lagu tago al-libaas al-faakhir dharka aadka u quruxda badan ayay iska dhaafaysaa waxay sidane jalaabibteeda dharkeeda caadiga ah oo ilqabadka lahayn baatiyadeeda waxeeday qaadanaysaa caadi gabar gurigeeda ka adeeganaysa suuqeeda oo aan aroos iyo xaflad u socon dharkay qaadanaysa dhar gaar ma qaadanayso cadcad iyo mid laga naxa iyo mid shardi ma dharkeeda caadiga ay qaadanaysa kalabaad waxa waaye anwaa'ul hulli dahabka oo xaragada waaweyn noocyadiisa kala duwan laba fasgeeso yar yar oo dhegta duleelkeeda lagu ilaalinayo xaraga ayno islaamu iskala baseexdaan waxaasi wax weyn ma laha waxa laga hadlaa dharka libiska loo qaato oo gabadhu markay aroos aadayso ama xaflada ay aadayso cadow jibiska loo yaqaan ay naga ka soo tabal caraystaan ama iyagu haystaan la soo baxaan dharka libiska dahabkaani ayadana looma ogola waxa kale loo diiday atiibu bianwaaci barafuunada awalaba naag caadiga barafuun inay banaan u la baxdo ayaan loo ogolaynba oo gabadha haday masaajid aadaysay haday suuq aadaysay inay iscatariso aad u soo carafto mamnuuc ay shariicada ku ahayd waxa la rabaa ninkeeda iyo gurigeeda inay isku carfayso markaan ay asayga sidane xatarka noocyadiisa kala duwan iyo barafuunada inay marsato dadku ku arkaan taas ayadana lama ogola ka afraad waxa way al-hinna al-mutadarrif waxa way waxyaabaha la yiraahdo cilaanka oo midka warwareega ah midka oo cidiyaha la isaga guduudsado agta la wada mariyo iyo cidiyahan iyo la mariyo laga hadlama waxa laga hadlaa midka khatarta oo naagta arooska bukuyeerka looga soo mariyo oo warwareeg oo asaga dhan caleenta oo shabeelka oo markay saan gacanta tira isha la jaleecaha oo leeyahay war qofkan qof khatar taasay la diiday afarta shay oo gabadhu iska ilaalinaysaa ama nolosheeda caadiga ah dukaankeeda ay ka shaqaysanaysaa gurigeeda ay dhaqanaysaa qubayska ay qubaysanaysaa inay saliid marsato aan carfayn macsaradeeda madaxa marsato ummaday assalaamu calaykum dadka inay tiraaw caadi la mucaamalood ayadoo xuduudi sharciga iyo xushmadii iyo akhlaaqdii awalba ilaahay ku waajibiyay iyo diintu ayadoo ilaalinayso waxay uga duwan tahay ma jirto dhaqanka jaahiliga oo la yiraahdo gabadha gambar gaar ah loo dhigaa qaado ayaa cuntada lagu siinaa si aan faruuriyaheeda saliid u taaban waa lagu ridaa qof ma la hadli karto ma salaami karto meel uma bixi karto waa la karantiila shaqada noocaasa hilib iyo wax macmaacuni karto waxaas waxa weeye waa jaahiligi iyo khuraafaadka waxaas waa la nasakhay wax ka jira male tinta saliid way marsan kartaa saliidda carfaysa la diidaa oo barafuunada ah laakiin saliidda macsarada ay marsaneen waxay sameeyaan khatara gabadha maalinta ninku ka dhinto saliid waa laga dhaafaa 4 bilood iyo 10 habeen ayaa madaxeedu intuu qalalnaado ayuu garaaca madax xanuun neerfa ku dhaca khalad ka weyn waxay ku sameeyaan waxay leeyihiin asayrid loo sameeyna hal saddex loo macsara madaxa looga bilaaba indhaha dam dhaayo waa khalad waa khatar laano fiiri qofka soo on kala cadda ama gaajo kala caddo cagabar haddii cunto ama biyo lagu qabto nafta ka hadiso see la yeelaa qub yar oo kulayla iyo waxa la siiyaa buskud yar yar haddii kale waa dhimanaa qof madaxaan markoo qalalnay 4 bilood haddii macsaro laga buuxiyo indhaha dam laba neerfana ku dhaca marka hore laga rabaa macsaradaada marso waxaad uga bedelantaa male adiga nama shukaansi ha gelin oo isgaroobin
shukaansiga naftiisa si cad oo qayaxanoo heblo waa ku rabaa aad daran maahe war qof akhyaar aad tahay oo diin leh ma hoogaysid dhibaatana ma arkaysid ilaahayna bedel khayr qabuu ku siinaya gabadha in la yidhaah waxaa la yidhaha shukaansi sarbeeba qur-aankana waa ku soo arooray walaa junaaha calaykum fii ma caraltum bihi min khidbati الnisaa wax dembiyo idama saarna wixii aad u sarbeebteen dumarka asayga ku jiro oo min khidbati الnisaa xodxodashada ama shukaansiga dumarka ah laakiin sariixaa la diidan yahay waa ku rabaa ayaa la diidan yaha mooye ilaahay bedel khayr qabuu ku siinayaa dhibaato ma arkaysid waad guulaysanaysaa qof la jecel yaha tahay aad tiri macnaheeda waxaa waaye iga warqab oo hoosawa maxaa yeelay abdakaar nabiguba waa yidhi islaanu wuxuu ku yidhi heblooye ictadii guri hebel ku ciddo tirso fain inqadad ciddatuka faadinniini uu yidhi haddii ciddadaadu dhammaatane isoo ogeysii marka isoo ogeysii jaa war laba boglaa ma ku guursanaa miyaa ninaan kugu daraa miyaa waa ku dhaqaalaynaa maadaama aan madaxweynihii muslimka ah waa ku soo watinaa miyaa ama xugun sharcigaan kuu sheegaa miyaa yacni waa hadal laba boglaa oy qofku muxuu ka waday ku jiray 4 bilood iyo 10 habeen markay soo dhammaysane nabigay u timid waxay tiri nabiga ciddadayda waa dhammaaday hebel iyo hebelaana isoo doontay ee igala tali hebelna waa faqiiray tiri uu yidhi hebelna waa safar badan yahe hebel guurso talowsii marka sarbeebtaas waa la ogolya waxaa dhacday arrin la yaab loo qalada hadda waxaa weeye islaantii intaad isku khilaafteen hal dalqadoo canaana ku dhufato maalinkaad oo aad rabto inay xoogaa inta canaansato rajacto aad soo tiraa caana liidow keena wuxuu bilaabaaba gabadhii inuu raashiin u keeno caana liidow u keeno meeshiiba uu oday ka noqdo waa wareer moogta ninaa islaana ninkeeda dhintay ilaa intuu tacbaankaayuu sakaraadayaba midaa la xaraarujinaayoo raashiinka keen daawada soo gad iska dhigaya muslim oo ku dadaalaya maalintii marka ninku dhinto gabadhii loo tacsiyeynaya ayaa la yidhi reer koonfurkan waa tacsiyo badan yihi heblooy raalli ahaaw iska sabar waa meel loo wada socdo ilaahay kaa sabar siiyo ale markaasuu warkii markuu saas yidhi wuxuu ku lifaaqo u dambaysiiyey i ogowhee uu hoosu yidhi iga warqabow markaasay tii runtaa waaye meel loo wada socdo waaye annagaa wada dhimanayno waa sabarsannahay midaaba ila baanshay tiri midaaba ninkaan ila baanshay oo intuu sakaraadayo caanaha iyo adduunka keenaya marka taasoo kale waa wax cadoo qayaxan moogta kaasaa la diidanya marka asaygaasoo ujeeddadiisu saas taane ayadana wuxuu raacaa ciddat ulwafaat